هذا حتى مش أنا احترت زمان لك يعني ما رأيك كنا فكرنا والله ما أبي يوري ثمانية والله بالله ده حتى مش تعرف بصراحة ده أجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan asxaabtayda waan idin salaamnay Ramadan Kareem qalbi furan iyo gacmo furan ayaan idinku soo dhaweynaynaa channelka naga daawanaysaan waa Axmed iyo Ayaan haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar commentina noo reeb iyo like hanaga ilaawin macnaha loo socdaana waa intaas haddaba caawa maxaan inoo haynaa caawa waxa weeyaan qof kastaaba wixii uu maskaxdiisa ku soo dhacda ayuu qofka kale si degan u weydiinaya isagana waxa looga baahan yahay qofka kale jawaab degan oo degdeg oo si degdeg ah waa maskaxiyan caawa haye Axmed noo bilow su-aasha koowaad aan ku weydiinaya waxa weeye finaankeeda ku jecesha fanaaniinta ma fanaaniinta oo dhan ma fanaanka ugu jecelaha ma fanaaniinta intii ka tira lagta warka maskaxda aan baaro fanaan ama fanaanadahaada uu wixii fanaan uunti heesabate niyo fanaanka ugu jecelahay ama fanaanada wallahi taas ugu adag tahay dee horta maba yaa fanaana kuwii hore kuwii dambe alla ku doono jawaab degdeg kuwii hore inaad weydiin kuwii hore aan garanayna may anu kuma kala saarinba fanaan baan ku dhahay war kuwii hore ka shiranta war kuwii hore maskaxda cudka war odayga cudka tumay warkii allah yarxamar raxiim dhintay odayga rayd kama ka tumi jiray noo sheegay tubeeca Allah naxariisto war tubeec maaha war wallahi maskaxdayda ugu wareegaya cumar duule warano cumar duule cali allah yarxamar raxiim dadka allah u nuuriyo magaciisa hal maamo waa bil Ramadaan ilaahu naxariisto faatixada oo ma in Allah intii fanaanada dhimata Allah naxariisto dhamaantood iyo intii muslimiinaba ma lagu sugayaa aniga ma wala adiga la hamiya su'aashan ma lagu diin wareen aniga u soo socda wali mooday ka gabadheeda waan iska baxayba waxaan ku weydiinayaa Muqdisho hadda waa magaalada Muqdisho ee caasimada ah haddii lagu lahaa meel ka deg halkeed ka degilay oo guri ka dhisatay xaafad mise xaafad sama war xaafad baan ku dhahay Muqdisho ku tahay Muqdisho caasimada war taynile la ila war taynile ah taynile wana magaciisa karweynay waa tuulada walaalo wallahi war waa tuulada taynile ayo tuulada ku shaq farxiyo ka waraaq muqash hatta ma caasimad ba ومقالة والمقالة ما هو تولني ومقالة ديس أو حافظ وحافظ شو كتاب وطيني لا لا أعطيك بس تقينا يا بس قال شيء تبع ما شاء الله دوا وطيني له تيميات كتشواب تبع مقدوشة القرآن طيني ليه حد قالوا طنطي مقدوشة تري مقدوشة ديني لا كم تجيب تعرف ما هذا ينقه بطاس ورانا كهو كم تيجي كهو سنة أوكي واحد كده له حافظ كلا أو مقدوشة كنت هلا هذا غيره هذا غيره ما واحد كذا هذا غير هالتاجي كنت هلا أنت ما فكرت أمس وحافظ برعب تعالى واحد هاي مقلان ربنا واحد أما قررت ولا واحد قبله نوعي ما قيد كسمة أخري جري إدريسو waxaan ka tagi lahaa xaafadda wariyasiino maxay xaafadda waxaan ka tagi lahaa Allah ilaaha illa Allah tasawwur waa ceeb udul qaato wala ilaahay ku dhaari xaafadda ka tagi lahaa waxa weeyaan waxaan ka tagi lahaa oo maalin kasta aad maqshaay waxaan ka garanayaa intaas xaafadda hodan oo waxaan ka garanayaa xaafadda hodan ka tagi lahaa hodan tabii muddo hodan هذا اللي جت هو اللي لكن يكينو شيء بدانا ما هذا وجرت وجرت واي ما جتانو لكن سؤال دقيقة
hees haddii hadda lagu dhahda maxaa la dhahday heesaha soomaalida cidda loo qaado yani heesaha qof lagu ammaanayo heesaad ku jeceshay heesaha waa heesaan guri gurigiisa waa maxay maxaa sameeyaa hadda so war heesahan heeso ma hees qof lagu ammaano shaqsi ahaan ها وبسي ma shaqsi dee qof shaqsiya شخصي ها لو قاعد والقمن الله dee يا hooye macaaniya yeeyo ايه سوي له قاعد معك walahi waa loo qadeeyo way jirtaa ايه لا انت قولي ayay la-aantaa dunidu waa abaar way kala xidhan tahay اسكت هي لما قاعدين هو يدا نو قاعد hooyo jirkaadi اويو وحنا هاي لا asku qaateen aad xadxumadana waa koobka qaaday شيخكا ميدانو هويو هويو ان كجعيلها هويو كجعيل shiritaanka noloshiyo jiritaanka admiga jiri laga abuuro aan jabaynin baatee intii hooyooyin dhimatay allah naxariisto inta noo noolna Allah inoo daayo. allaha barakeeyo Aamin ya hooyooyinka Rabbil Aalamiin. oo dhan intii xanuunsanaysa allah caafiyo intii baahnay alla baahidaa tiro ummadda muslimiinta meel kasta jooga wasra waan barnaamijkan gabagabi gaadhay bili weydii yeah weydii haddii imika haddadan lagu dhahdo waxa sameyn hadda waa imikadan inu taagan ninka lacagayga maxaan qabanay hadda haddii lacag yihiin haddadan haddii lacag lagu dhigo maligan hadii millions hadee miliganisadi lagu dhigo dee laguna wax ku qabo korkaagaba dahabtaan suuli maaligaygan ba maaligaygan kula fadhiya ma ilaahay xidhba madaabka sida gelinay dahabkaas ugu gelinaa laakiinse waxaan qabanay mid kala raaci lahayd oo waxaan baahi tiri lahaa ummadda muslimiinta weliba ummadda soomaalida cid kasta u baahan haddaan baahi tiri karo ay baahi tiri lahaa waxa ugu horeeyad qaban lahayd waxaad ugu horeeyad qaban lahayd Waxa baahi ugu jir horeeya- lama hayo ilaahay baa wax baahi waxa ugu horeeyaan qaban lahaa waxa weeyaan agoomahan caawin lahaa agoomaha qaban agoomahan caawin lahaa allah kuu suurta geliyo aamin ya rabbil caalamiin adiga laga sugay baasha soo daadiyay haddii hadda lagu dhahdo qof hortaada la keeno ya jeclaan lahaa hortaada na la keeno hadda haddii lagu dhahdo qof hortaada la keeno ma qof haa ma qof noo la soconayo qofna u soconay oo rabtidii marka hadda hortaada hala keeno surprise lagaaga dhigay taayidii faalmo faarax hadday saa noqoto iyo ku salaam qof haddii imika baa laga keenay taayidii faalmo faarax ilaahay daayay aamin ya rabbil caalamiin haye waxa haya maaniga ilaahay waa say ka sareeye caadi manu ilaabo waan ku xidhay ba saw wariya haddii lagu dhahdo gabayaasha inta gabayda keebada ugu jecesha gabay inta gabayda heesanagara inta gabayda waxaan ugu jecelahay allah yarxamar raahimiine timcadde markuu leeyahay كالنسيب كالنصان والزاري يوم نسقامو أنزلوا يا يجني كالنسيب كالنصاري الله timcadde الله يرحمه الرحيم allah yarxama raxim wariyaa dad maanta xaawaa وردي soo أنا xaadirnay قبي أيوه gabay وردي أنا قبي يا بنا قبي يا مو haati timcadde gabay kale noo sheeg ileen bada kusoo gabagabaysa gabiga dabe أو قبي كان اللي شيء يا سو إري أوكي إيه ما ma sidaasa ها حتى أنا مو قبي عركرا bal noo fira hadda زيزو زوزو أدنى وزيزي ومنه waa xeebta caadi uga xidha wixiisa صعب wariyaa أنا سوي شيء دقيقة siyaanaha dib weydiiyada wiwi أنا كنت ديني wax hadda maxaa la rahday intuu xanuunka corona virus ku jiray markaad maqashid ama aad degeysatid aad qososhaa waa maxay tan aad ka naxdaa dee wax yaroo ilmo yaro aan isiri laakiin waa la bedelay baan isiri faafi tatra faafi inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun wax la sahaadsaday wax lagu ducaystaa ma jirto horta marka hore iskoorka kuwa yaatay inaan saaxiibanahay halkaas ka salaamaya isaga iyo dumashiyada
ayaa ii soo diray moogta ina yar buu leeyay inantiisa ilaa sanad meelaha sii jirta umalaynaya wuu ii soo diray messengerku igu soo diray anaa halkaas ka jiifo markaasaan dhegeysti markaa anugu faafi waxaan u haystayba tii sireed baan u haystay moogta markaas ayaan u qoray maasha allah waa soo taweynaatay ma faafi bay leedahay ayaan u qoray ninkii cod buu isoo duubay markaasuu igu yidhi maxaa weynaad markaasaan ku yidhi otan yara faafida hay samayna taadi yaraadaay nala weynaad salaam saraan ugu salaamayna familiga saaxiibkay weeyaan su-aasha daada lagu sugayay maaniga la isugayay de anu aadun badan xeebta uga xidhanayaaba waaban ka daadagayaaba sameexanaya haddii caawo lagu lahdo waad tegaysaa kadaa haddada aad taagantay maryahaaga ka xidho oo ka daadag meesha jecesha halkada ka daadageli ayaa meeshaad jecelahay meesha weyda joogto wallaahi baana meel kale way dhadhanteenba halkaas ka xidhan haa wallah deg wax aad isleedahay wax maskaxdaada hadda haddii lagugu dhahdo waxaasaa dhacay maanta lagugu dhahdo aan weligaan maskaxdeeda ka bixin is leedahay aad yacni la yaabisaysay ku dhacday macquul maaha aad is odhanayso isu weydiinayso waa maxay wax aad isu weydiinayso oo isweydiinayso oo anigu isweydiinayo oo siday ku dhacdana odhanaya saasaa dhacdo oo weligaaba haddana xasuusinaa si sumsini waxaa si u dhacday macquul maaha war garamaayo ana ku sheegay adigu anu waxaan la yaabi lahaa hadda haddii lasoo waco la sheego maad garanaysaa haddii lagu dhi lahaa dayaxitan nushay ayaa ixtiraafkiisa meel la keenay noloshii kama fikiraaga bismillaahi raxmaan adigu qarniyaadka iga horeysa maniga wallahi billah dayaxitan nushay saaxiba ku jiraa saaxibaabta aan jirnaa yaraanta beriga madrasada wala dhigin jirtayne bakaaraha madrasada bakaaraha wala dhigin jirtay xaafado bakaaraha xaafada bakaaraha wala dhigin jirtay dhegsadii haddii hadda la odhan lahaa dayaxtan nushay ixtiraafkii somaliland sida oo keenay ilaah baa ku dhaaray noloshaas bay kaa dhaadhici lahayd igama dhaadhacday badda aniga yani waa iga dhaadhici lahayd oo se iga dhaadhici ani marba iga dhaadhici lahayd ani sabta iga dhaadhici sugdi anaa ku sheegin midna iga dhaadhici lahayd ani marba iga dhaadhici lahayd waa fanaan kale dad badan baa dhageystay waana dad wuxuu wax ku gudbinayaa afkiisa cod buu ku gudbinayaa wuu cidhiiri wuu cidhiiri marka codkiisa dheer waxa laga yaabaa dad badan inay wari qolayada gabayaalka iyo fanaaniintu aad bay waa inaa la ilaaliyo weeyaan waa la ilaaliyaa dadkaas iyo macalimiinta layidhi iyo macalimiinta waa dhegeysadii ya hay dee wade dhamaatay ma dhamaata i dhegeyso تعال اه والله مركز تعرف محاسن والله تعال بك حسن والله وقت بحين يلا مركز برنامج انت هبين كان مطقي مع الصوت برنامج هبين كيف يمكن مساء مطقي مركز برنامج تنبض والله بالله طلع تعال